marka laga hadlo sheekada xariga Bilaal Bulshaawi ee ka dhalatay koob shaaxa oo midabkiisu ahaa buluuga sida calanka Soomaaliga ayaa noqotay mid ugu naxdinta badan sabab la xiriirta xaaladda ka soo korortay tacadiga Somaliland ku haysta wiilka loo yaqaano Bilaal Bulshaawi. xaaladda Bilaal Bulshaawi oo loo garanog yahay madaxweynaha TikTok ayaa maraysa meesha ugu xun sida ay warbixinadu tilmaamayaan. silsilada ayaa lugaha iyo gacmaha ugu xiran Bilaal Bulshaawi waxaana loo sii dhaadhiciyay xabsiga loogu talagalay dadka dambiyada waaweyn ka gala wadanka. sidee ay wax u dhacayaan hadda? maxaa keenay in xabsigii 7 maalmood ah la kordhiyo isla markaana jirdil loogu sii daro? qaabka naxariista ka fog ee ciidamada amniga Somaliland ay ula dhaqmayaan Bilaal Bulshaawi waa wax laga xumaado sida ay dadka inta ugu badan qabaan. qoyska Bilaal Bulshaawi inta aanan ka hadalka sheekadan ee sira badan uu ku aadan Bilaal Bulshaawi xarigiisa idin la wadaagin. haddii aad jeceshahay guusha qof walba oo ku hadla afka Soomaaliga fadlan like saar muuqaalkan una share garay asxaabtaada si muuqaalku u gaaro saaxiibaad u fara badan una wanaagsan sida adiga oo kale. waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga. Bilaal Bulshaawi ayaa bartamihii bishii hore lagu xiray gudaha Somaliland kadib markii maqaayad uu ka dalbaday koob shaax isla markaana loo keenay shaax midabkiisu yahay buluug dhaxdan ay uga qoran tahay xidigta cad taasoo suuraynaysay in calanka Soomaaliga shaax u midab eeg loo keenay. intaas kadib booliska Somaliland ayaa kala baxay halkii uu joogay waxaana ay u dhaadhiciyeen xabsiga. dambi ayaana lagu eedeeyay isagoo lagu xukumay 7 maalmood oo xabsi ah. kadib markii uu soo dhameystay maalmaha Bilaal Bulshaawi ayaa khamiistii la soo dhaafay waxaa mar kale dib loogu celiyay xabsiga waxaana loogu daray 7 maalin oo kale oo xabsiga lagu sii hayn doono iyadoo ciidamada dambi baarista ay dalbadeen in muddada xabsiga la kordhiyo si ay u sii baaraan kiiska Bilaal Bulshaawi ugana soo salgaaraan. iyadoo la isweydiinayo maxay tahay waxa laga salgaarayo ma kaliya qofka calanka Soomaaliga halkaas ku qaatay ayaa ah dambiilaha ugu weyn mise Bilaal ayaa galay dambi dil ah oo waxaa la baarayaa sababta uu qofkaasi ku dilay. waa wax la yaabo. wararka ka imaanaya gudaha Somaliland ayaa tilmaamaya in Bilaal Bulshaawi oo maxkamadda Hargeysa u kordhisay waqtiga uu xabsiga ku jirayo uu la kulmayo tacadiyo kala duwan ciidamada saldhigga dhexe oo ay u geysanayaan ciidamada jooga saldhigga uu ku xiran yahay kuwaasoo wiilkan ku xiray qol sidoo kalena gacmaha iyo lugaha uga xiray silsilado sidii inuu galay dambi aan nabcaadi ahayn. sidoo kale Bilaal waxa uu ku xiran yahay sida la tilmaamayo xabsiga loogu talagalay dadka geysta kufsiyada dilalka ama falal kale oo aan nabcaadi ahayn. weli lama oga sida uu Bilaal kaga soo bixi doono xabsiga Hargeysa ku haysta. sidoo kale waxaa la isweydiinayaa sababta uu xiran yahay Bilaal oo ka baxsan in koob shaax calanka Soomaaliya ahaa loogu keenay maqaayad Hargeysa ku taala. adiga ahaan aragtidaada maxaa dambiyo uu galay wiilkan? maxay tahay sababta dambigiisa uu baaris kale loola sii aaday oo muddo ka badan 7 maalmood uu xabsi ugu sii jiro? adigoo cabiraya aragtidaada ku aadan qaladka lagu haysto Bilaal Bulshaawi. xorriyad ayuu u baahan yahay taasi oo ah waxa ay ku farxi karaan dhammaan inta jecel wanaagga. haddii aad muuqaalkan daawatay waxaad awoodaa inaad like saarto isla markaana share garayso si muuqaalku u gaaro saaxiibo badan. magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho. waad ku mahadsan tahay daawashada.